وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام. هاي أنا وهاي تومر هودتك وحي سلامت على السلام عليكم سوق رواك قادا السلام عليكم والله السعتانو سومالي بدن با waxay dhahan leefka ma jeclayna dan baa igu kaliftay maanta anu leefka waa jecelahay waa la socotaan balwada sida bariisku yahay hadba mar inaan usbuuci labadii usbuuc hadba mar inaan afka iska kala furto waa noloshayda maaragtay saa noqotay marka waa waxyaabaha maaragtay anu ma qaylo laakiin geedkaas waxa weeye marmar waa shitaa caawa 2018 baa lagu jiraa beelaha Soomaaliyeed muftigoodii baan ahay waa la dardaarmaa qabyaaladu wax la jecel yahay beel loo baahan yahay weeye horay baan u iri waxa weeye inaynu orodno oo qabyaalada ilaahay baan ilaahay beerka beelle hadda beel loo baahan yahay weeyo kullay deeymayne Soomaalida in si farsamaysan waxa weeye dhinaca wanaaga in hadba loo rugrogo oo mar hadaan ka tageyn xataa hadba dhinac laga tuso hadba dhinac lagu soo celiyo waa waxa weeye waxyaabahan soo bartay bay kamid ahayd qabiilkuna dee wax xun maaha waana malcaan anigu dad baa leefka soo galo oo hadba markii la daawan waayo hadba mawduuc isku qaadaan ilaa ay galma la gasho maalin ba waxa weeye naaqubkeed ka sheekay maalin ma artay wadaad ku dhig maalin maxaan ku raada halka ka kac aniga meheradaas ay shidan qabiilku suuq ma waayo Soomaali waxa weeye wax kasta waa ka xisa dhacdaa laakiin garaangirinta qabiilka ya waa Faisal Waraawi Somaliland qabiil buu uga sheekayaa 25 sano waa dhici laayay riyaal orod buu ku dhaafay silaan orod buu ku dhaafay nin walba orod buu ku dhaafaa ciiru hadda wax caga badan kuma taagna muuse wax badan inaan soo joogin baa laga yaabaa laakiin Faisal reer hebel habar waxaas uga sheekayaa intaas ku jooga Soomaalida qabiilku waxa weeye waa meherada kaliya oo laga xisan dhicin weey anigu nin qabiil baan ahay saasan arbal suga maxaa bilada yaa weerka isu qaaday ها اوكي وي ها هدا مقلي سماكم مقلنا سي فيعني ها بلا اي سو غشي هاي dad baan halka bismillaahir rahmaanir rahiim xawaay qaatay bala ay qaadatay ha mobilkii waa iga saltay marka qabiilku waa meherada aan dhamaan weeye waa wax loo baahan yahay qabiiladii Soomaaliyeed caaw halka saasaan u dhigdhigeena saasa reer waa rag ka tagmayno oo daarood gala ayuubo isaaq laga tagmayo ilaahu wadan beerka beel hawiye sheekhaal dudub cid la dhaafmiyo waxaan ku iri raxan weel 8 maxaan ku dhahdaa waxaan ku iri aday dhalay qolo la yiraahdo oo hadda la ii soo sheegay oo awal aan ahayn maxaan ku dhahdaa abeesi koriye raxweyn kamida dhamaan halkaas la soo dhigay umada Soomaaliyeed isbarato weeye afar qabiil oo laba qabiil baan weerariyay ama saddex qabiil baan weerariyay halka ka dhacday halka qabiil kasta in afkooda waxa weeye halka la keeno magacooda la keeno afkaygu karo baan u baahanahay anigu umada Soomaaliyeed oo dhan waa u baahanahay wixii daawanayo dhan waa u baahanahay halkaas caawa reer la dhaafay malay maysusna waa la soo keenaya idin faclo waa la keenaya ilaahu wadan beerka beel maxaan ku dhahdaa reerkii maxaan ku dhahdaa qiimaha badnaa oo maxaa la oran jiray ugaadeen gali jiray muxuu ahaa biladii muxuu ahaa daama weyn miyuu ahaa maaqan adigu liiskoodi waa haystaa halka reer walba waa la keenaya meherada caawa ay noo shidan tahay commentigaas ugu soo qoraysan commentiga caawa akhriya awal ma akhriyi jirin cidii xikmad haysta leefku waa soo qabanaya barnaamijku waa balaaran yahay cid laga tigimayo beelaha Soomaaliyeed oo soo canaantay oo meesha aniga ma sheegtido ma jirteen isaaq baa u badisay meherada dhaha ma jirteen isaaq una qabateen ba saaraya warkoodu ay ugu batay waxa weeye laba subac weeye Soomaali waa ka bateen hadda inay ku badiyay karaal ahaada qabiiladii soo wacay oo awrtable lahaa oo aan halka ka xusi waayay caawa meheradu inay ka shidan tahay soo dhawaada waa caweynayna qabiilkuna dacamalkeeni weeye waa qabiilku waa anigu umada qabiil anu qabiil kama jecel dadku waa simeeyay reer balkaas ka sheegaya Soomaali way sileegtahay yaa Soomaali yaa yiri reer baa badan Soomaali way sileegtahay reer kala cid yar cid badan ma jirto cid kala dheerisin ma jirto dadku way sileegay aniguna Facebook waxaan soo galay inaa isdhin celiyo oo aan laba isdhaafin oo dad kan xabada isku dhaafay aan Facebook ku simo ilaa Soomaali lagu kala adkaaday xabad baa la isku dhaafay dadka inaan Facebook ku simo baan anigu halka u joogaa siba caawa Facebook mobilku meel khaldaniga yaala isuga adeerayaal isuga ها روح كاب خلكي نعم شيء دم كيال وكا قبيلة
idaacadaha soomaaliya loo diiday inay ka hadlaan oo tifiyada loo diiday oo maxaan ku idhahdaye waxa weeye soomaali laga adkaaday halkaasaanu camiraya waxa weeye idig facale intaan hadalka ka siiyo baa manjeerteen ka siinaya maxamuud saleebaan ka siinaya ma garatid dudubale intaan ka siiyo baan ilaahu aadan beerka beelin habar gidir ka siinaya ayuub iyo habar jecle isku yiin baa halkaa ka siinaya soomaalidu cadaalad bay u baahan yahay dadka in la simi weeye ya haddii xabaddu simi weydey haddii ilaahu aadan beerka beelin maxaan ku idhahdaye dowladnimadu simi weydey haddii xilku simi waaye facebooka shiino culey baa soomaali ku silmaysaa qabiilkuna anuu ma aaminsan reer baa reer dheer qabyaalada reeraan ahay cid taqaanaba ma leh qabiilyaalada waxa weeye waa jecelahay waa wadwadaa laakiin ma aaminsani halkaa laan dheeraan ahay haddaa iga maqashaan iyo reerkayga waxaa lasoo siiyo nacad wallahi igu dhufto waxa aanu kama aqaani dadka soomaalida waxa weeye waa labada reer aan ugu jecelahay waa labada reer oo igu fog ya laba reer aan ugu jecelahay waa labada reer oo miligta aan ku sido bidixdana inaan ku reebo aan jecelahay waa halkaas aan ugu joogaa ma garateen marka barnaamijku waa badan yahay hala sii sheergareeyo meherada ninkaan sheergaraynayn reerkaan sheergaraynayn reerka sheergaraynaya meherada xaq u leh hala sheergareeyo nima aniga sheergaraynayn culayskayga la tago oo meheradaba daacad u ahaynba ha ka tago meherada ma garateen halkaa sheer baa lagu wada joogaya sheer reerkii halkaa sheergareeyo commentiga soo qora baa halkaa la arkaya waxaan ku idhi ayuub waa reer isaaq ka mida waa reerka saldanadoodii bay ahaayeen gadaal baa maaragtay marbaa daacun baa ku dhacay baa lagu yiri kolley hadda saa uma tira badna laakiin waa saldanada dadka isaaq u gobaysan weye nin ayuuba kuma aqeedi kartid madaxaas ay saaran yihiin allaha sharfo waa ila soo xiriireen facebook way soo calaanteen habar jecel annaga ka maaragtay laan dheeraysan ka duudsan bay soo dheheen waa ogahay ayuub xoogaa waa silaanya habar jecel maaragtay soo kiciyey waa ogaa inaa maaragtay ka sarreysaan ka maaragtay taariikhda xagga taariikhda uga facweyn tihiin maxaan ku idhahdaye maxamed case oo samaroona laftigooda waa soo calaanteen maxamed case mikaahil baa wadadaa bay dheheen raalli ahaada mikaahil waxa weeye waa la socdaa inuu maaragtay riyaale ahaa ilaahoodan beerka beelin maxamed case hadda ininkaaba hadda inii shidan tahay meeradu waxa weeye waxaan xoogaa hadalka idinka yaraystay meesha soomaali ahaan ahayd mikaahil digadaa banaankaa ka dhigteen reerkii seelicintuu qabsaday halkaa saasaa ini ilaawey raalli baa iga ahaanaysaan maxaan ku idhahdaye dad badan bay soo canaantay hadda halka kama wada sheegi karo laakiin ballan waxaan ku qaadaya meherada waa la simayaa reerka sheergareeyo inuu shimaysa hala sheergareeyo nimaan sheergarayna maxaa aniga qabiil baa igu imanaysaan qabiil baa iga tegaysaan qabyaalad baa igu imanaysaan iyadaa iga tegaysaan anigu dadka maalinba mawduuc isku qaada oo maalinna galma ka sheekeeya maalinna xulbad hala cabo dhaha maalinna tumaan dhaxbub hala cuno dhaha maalinna halka ka shidan tahay dhaha maalinna wadaad isku qaada maalinna masaajid soo fariisto nimanka culimada ah walaal gabar baa xanuunsanaysa ilaahay baa ku dhaashay si sheergareeya oo gabadha hadday xanuunsan tahay maxaan ku idhahdaye maa tirahda waxa loo soo ururiyo sheergareeya ma qof xanuunsanayaa la sheergareeya adeer qabiilka sheergareeya aniga qabyaalada sheergareynta u baahan qof xanuunsanaya oo tabcaana oo $500 u dhiibtay sheergareeya maxaa laga sheergareeya nimanka culimada oo saa wax ku doonaya anaa sheerta xaq u leh ha mid baa lahaa jannada tegaysaan sheergareeya jannada tegaysaan sheergareeya haye annama hadda arta adeer haddaa culimadu haddaa saa u hadasheen jannadaa tegaysaa sheergareeya haddaa ummadii saa ku bahalkaynaysaan anna hadda aan leeyahay adeer ninkii sheergareyn waaya cadaabtu gelaya sheergareeya halkaasaana gaarsiinaysaan anagana hor joojiya waxaa wataan joojiya ummadda soomaalida waa salaamaya qofba salaanta meeshuu leeyahay ka qaato reer sheekh xisaaq baan ku bilaabayaa majeerteen baan ku xijinaya halkaa maaragtay dadka halkaa waqooyi hadda iska shitay meelaha shitay dhulbaahantay kama tegin daraawiishta maxaan ku idhahdaa marka leelkase waa dadkaygii weeye waa salaamay habar gidir oo saacad u sukayo waxa weeye waxa weeye waa yadatan hadalkiinu waa batay waa caawa dardaaranka ugu badan ninka ini saaraya waa dowladdu waxa weeye waa hareeraha haystaan maxaan ku idhahdaa xawaadle sidii abgaal loogu daray warkoodu ma cadda abgaal nimankiiba waxaa lala galay jawhar baa lala galay waxaan ka haynaa ninkii la oran jiray goodax barnaamijyaha ka hadlaha wasaarad macno lehna oo idaacada ay la soo fariistaan ma hayaan baa malaynaya waxbarashada iyo waxbaa la sheegayay waagii hore arrimaha gudaha iyo meela maaragtay dufan leh bay haysan jireen yuusuf garaad sababta xilka looga qaaday waa taabanaya yuusuf garaad waa soo dhaweeyey xilka in laga qaado yuusuf waa ahayd mistake weyn buu sameeyey halkan ka sheegaya juxe kii halka maaragtay ciise maxamuud oo maaragtay kolley ciisa kolley hadda loo dhiibay meel fog kama tegin ciise maxamuudku marna waa tacsiyeynayeen marna waa hambalyeynayeen marna waa tacsiyeynayeen bal mee mid ku ekaadan ama mee tacsiyaan ama mee hambalyeeyaan iyadana waa taabanaya sii sheergareeya commentiga waa akhriyaya reerkii halkaa soo qoraan la soo hadal qaadaya reerkii sheergareeya oo halkaa soo qora baa la soo hadal qaadaya ogaadeen maanta waa layni kuunyayaa
soomaali ini kale kunya si fiican baa idin salaamaya waa hadalka waa idin deeqsiinaya ogaadeen waa la idin kunya maanta adsaba marka madaxu tagtana ininka ini martida Nairobi ininka ku soo dhaweeya Soomaalina gobol idin lahayn ba hadda madaxa saarsteeno waxa weeye raqabada ka joogtaan ogaadeen waa la idin kunya laakiin saax ku wadaan maalintii uu Axmed Madoobe inamada ciyaartooyda xataa Muqdisho marreexan Muqdisho kaga tagay sida la sheegay iyo kuwo waxay yihiin gaal jecel nasabnimo maaha kuna si joogmaysan sida kismaayo ku shaqaysanaysa cadaalad ba umada deeqda in nimankii ciyaartooyda ahaa oo maxaan ku dhahdaa gaal jecel ma baad muxuu ahaa gaal jecel xawaali ahaa la deganaayeen nimankii adigu halka deganaa iyo marreexan in airportka lagu reebo ya Axmed Madoobe oo kuwii ogaadeen diyaarad soo diro gobnimo maaha waa taabanaya caaw taalaftigeeda marka sii sheergareeya barnaamijkan galina booqashada farmaajo ciidamo iska horreysiyay baa leeyahay farmaajo la soo dhaweynaya reer Puntland waa inay soo dhaweeyaan madaxweynaha kuwa maaragtay canaananayo wixii lahaayeen madaxweynuhu Puntland hore uma iman madaxweynuhu waa inii soo socday weligeedna caadadu saas ahaan jirtay madaxweynuhu Xasan markuu ahaa Shariifka marka gobolada kale la soo maro bay dhaba la tago Jowhar la tago Kismaayo la tago waa caadada la yimaado ama dhusamri waa lagu soo dhameyn jiray Puntland maamul dhisan weeye marka dee dhulka kale shaqo badan bay u baahan yihiin oo Puntland aan u baahnayn marka caadi weeye dadka yaan loo baahan gelin farmaajo Puntland ma nacba halkaas ay u saaran tahay maamulada dadka Soomaaliyeed bay u lamid tahay wuxuu idin sidana waa idin keenaya haddana wixii soo raaga khayr ku jira ninkaas soo dhaweeya waxa weeye madaxweynaha Soomaaliyeed weeye halka madaxa saarsa si fiican u soo dhaweeya dadka canaananayo ciidan buu watay oo ciidan Soomaaliyeed baa garow watigay war Puntland ba Muqdisho ciidan bay la aadaa madaxweynaheedu markuu tagay ciidan buu la aadaa عقل حمد إسكداي مدكره شيخ شريف يا حسن شيخ أمشون بيجروا كيني جريل كان ويلاش الصوماليات بكينا ويلاش الصوماليات سو ضل قاضي ماله سو ضل قاضي ما جروا هدي عيدا الصوماليات كوفي على كانوا كوفي عص على كانوا وعادي تي وضل قاضي وي حق بيقول لي مدحوينو عيدا كإلى هذا محتاج أبو بكر صونية بلاك لما لا جرانيو إني مركا يجوا راعان وميرو البوجه الرئيسيين دي بداية حتى أوصل راعان دي بداية أمريكان كادو فرماج عاديو طبعا ويلو أسكري على السعودة وأدونك ودبدها وضمضة كلاتو إسكار دافي كانوا ولا ودنكو كتلني وي ودنكو كتلني وي مدحوينه هنا دي هيئات بقى إلى الساء ما قرأتين هيئات بقى إلى السعيدا إلى لم يحتوي اللي إلى هذا عيدا كاسا ميرو بأوراعة كاسا إلى علي أمني مدحوينها صغية لغو كلسوني هاي يا كواس كو كلسوني هاي دي عيدا كلاتو بلاقيهين لقرانينو إله هذا بيرك بين عقدات كل جست قلبي جودا عيد أجينه لقوا ما عمل كرم الحوينها باش رد إلا تعطل راه عيدنا كنا بيركلي معها بيركلي ما وورست عيدنا كهالك على كياني ما مريحان بهاي كواي مريحان بمش لقي ما هي هل ويل بمريحان كجري بالي هبرق دي باكو جت أبقال باكو جري مجرتين باكو جري وقاعدين باكو جري كبويا كجري محاكور هذا إله هذا بيرك إسحل باكو جري إله هذا بيرك بين محاكور هذا غير ورق باكو جري واسيد ليش شيء صومال وارد ما ينبالي يجري مركا حسن شيخ يا شيخ شريف أمسون بإيدين كيني جرين كما اللي جرين فرماجة محا عيدنك الصوماليات كويستان يا غير بنتلانو ما آمن حمام ماها ولين آمسين هاي مدحوينها إنا الضوحتان لك مبقى الحاشا وجود هلك حميننا هلك عيدنك إلى هذا مدحوينها كما هرتو وانا كسيه الرئيسة كسمايو أفرعدي عدادي أفرعدي بينو أفرعدي إنكم مدل كلاتين إنكم دل الصوماليات باتين مدحوينونا إلى هذا سكو كرسوين عيد كلا لما آمين كرو حشا وجود أنا بتاجم بي سوي عيد كلا لما آمين كرو مدحوينها ضد أو قبيل يهين يوحيين القرنين أو هالكا وحكوا يري علوش وحكوا جل اللوجين أو توبر الصوماليات قبين أو على الصوماليات لوط من أو أستانتي قرنك ما عرفت كتابك قرنك اللي قلنا محاكوا دستورك قرنك اللي قلنا عارن أو إلى بيل بدن أو اللي ما بقول اللي شيء وبيل المدحوينها اللي هو آمين كردي رنت عن سو شيء marka si sheergareey adeer sheergareey madaxweynaha farmaajo ciidanka halka la tagay laga ma hadli karo ninkii ka hadlaa inuu gumeed kartaran weey xasan sheekh iyo sheekh shariif amisom bay la tagi jireen wiilal Soomaaliyeed buu la tagay wiilasha Soomaaliyeedna arday farda kula carar farmaajina marka ag jooga waa niman dirga la yiri arday gabar siista waa ka faa'iideystay rag farmaajo ilaalinaya arday gabar ku darsada waa nimcabe arday ka faa'iideysto farda kula carar ma garateen
faroole markuu garawate muqdisho tagay ciidan buu ka haystay isagoo madaxweyne maamul goboleeda cabdiweli cali kaas madaxweyne cabdiqadar khayr allah siiye maalin walba guutu ka haystaa miyaa aragteen cid ka hadlaysa maya maxaa madaxweyne qaran ciidankiisa u hadlaysaan gardarro way reer Puntland arrinta raalgelinteeda rabaa hal la dhigo halka raalgelinteeda rabaa reerka Puntland waliba jooga oo u badan oo hadda hadalkaaba uma badnay u hadalka dheer oo hadalka wadooday commentigiina akhriyay reer hebel weey oo garanaya reer hebel habeen dam halkaas soo galiyay hadda biri ila soo hadli weydaan xaalkeeda bixin weydaan aniga waliba ii dhiib weydaan ana barixaan iyo farmaajo gaarsiinayay wallahi oo billahi tullahi habeen dam halkaas afku furanaya reerka reer hebel ya magacoodu dag shanta xaraf yahay halkaas aan habeen dam soo fariisanaya waka reer Puntland madaxweynaha farmaajo awliyo weey khadar soo diray weey ninkaas muqdisho hadda lagu soo ligligay bil maseexan sida la sheegay bilaayo suwac waxa reena ka galay waa la socotaan waa ladii waay nin hawiye dhex joogo ma hurdu garanaya waa la socotaan mooshin waa keeneen waa hadba bilaayo ku sameeyeen ninkaasi labada maalmood saddexda bari in la joogo ninkaasi hayna ku nasto soo dhaweeya marxabeeya oday Soomaaliyeed weeye dad baale daarood badan oo xanaaqsan markay farmaajo oo ma jirteen kow ka yahay oo anaga nooma tirsana bilaay mursade hawiyu gacanta ku wata warninka madaxweyne Soomaaliyeed weeye ilaahay xamdigii waxa ah inaan maanta qabiil lagu suntin waxa ceeb ii ahaan lahayd maanta oo aan ka nixilaa in la yiraahdo farmaajo waa nin daarooda waa nin marreexaan waa nin qabiil reerkiisa baa reeraa jooga mar hadaan taal oran waa faataxo weeye waa faatax alxamdulillah weeye Soomaali waxa halka dhigay qabiil buu ahaa nin walba qabiil baa lagu tuhmiyay xasan qabiil bay ku tuhsaneen shariifkii qabiil bay ku tuhsaneen Cabdullaahi sallallahu alayhi xarista qabiil baa ku tuhsaneen kuwii ka horeeyeen qabiil baa lagu tuhsanaa maanta farmaajo nin qabiil maaha marka ninka ugu dudaya daarood tala kama qaato daarood xere ugu ma jiro waa nin gardaran weey farmaajo daarood baa doortay orday suldaan ka dhigtay suldaan daarood ka dhigta hadda rabtaan inuu ninka adeego ninka nin qaran weey ma garatay dadka hawiyaha ah oo ugu kacsan ninka daarood weeyna wadada habeen jirin warmada Soomaaliyeed dawladnimo rabtaa hawiye daarood ma rabto nacala shiidan ku yaal waana dhibteena maskaxdaana cunteen hawiye daarood lama rabo nacala akhwaad ku yaal dawladnimada deeqda dawladnimada la rabaa dawladnimada maxay ku imanaysaa dawladnimada waxay ku imanaysaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha dawladda la shaqeeyo ya dadku muwaadiniin noqda qabiilka iyo qaranka kor loo qaado taasoo ku imanaysaa ku iman mayso reer hebel bay ku imanaysaa Ethiopia rabna inaan la tartano Kenya rabna inaan la tartano soo kula tartamayna Kenya qabiil kula ma tartami karno haye maanta hadeen inagii walaala ah wada socon weynay wariyaa Ethiopia miya iska dhicin karaa Ethiopia iyadoo Soomaali wadata oo ugaadeen wadata bayna jiiraysa hadee inagii qabiil isku kala socon inagii Soomaalida markaan hawiye iyo isaaq iyo daarood iyo dir iyo raxween iyo waxaan aqoon oo sheeko khuraafaad ah aan ku kala tagno waxa la yiri hadaa doqontaada ka tagto bali doqontaada hadaa ka tagto nin raga oo doqontiisa uu taa ku dilay taas ali ma garateen Soomaali reerka ugu yar maanta in halka la saaro la tixgeliyo u baahan yahay daarood iyo hawiye iyo waxa lama rabo nimanka halka waxa kala hadlaya dadka farmaajo marreexaana ma daaroodna ma dadka uu ka degi waayo muqdisho jooga oo siyaasiyiinta aanu reer beel oran mayo siyaasiyiinta reerkaasi u badan farmaajo marreexaan laba ra'iisul wasaare saddex ra'iisul wasaare baa muqdisho si fool xun shantii sano ugu dambeysay loo riday waa saddex ra'iisul wasaare farmaajahaas koow ka 6 bilood markuu joogay baa si fool xun xilka looga qaaday saacid baa ku xijray waxa ku xigay ninka la yiraahdo oo ugu dambeeyay Cabdullaahi Sheekh saddex nin oo marreexaan ah baa duhur cadsaa loo dirtay muqdisho oo wallaahi billaahi tullaahi nin baa igu dhaartay saacid ساعد يانكو أوراني نيكي لو أورانجي عبدول الشيخ والله وبالله وطلعي ما أنتي حلك لك قاضي ما أنتي كحتي قرقيس لك مسؤول أديكين نبقى يقول دارتي ساعد لمد فرماج واب وقيدين محبوب الجوجي بكوك على سنة بالجوجي لح بلود بالجوجي سفول أو شرع الدراء وصدح عن حلك لك قاضي وامر ريحان صدح دبا عيد كهلس أم ريحان أم الداروضة وهلك صوفر يستا أو طلعي إن الداروضة أم إن ريحان مقدشوا الوحمة يمي عرفتين مايا nimanka shaqo qaran baa loo dhiibtay xil qaran bay hayeen qaran baa magacowday qarankii baa eriyay xaq iyo xaq dar ku rabaa ku eriyo خلاص waa dhamaatay maanta rag qabiileynaya
oo reer hebel leh oo shafka tumaya oo daarood iyo hawiye iyo waxaan aqoon afka ku bahalkaynaya oo mareexaan maaragtay mareexaan baa xukuma mareexaan baa kana mareexaan war mareexaan ka duhurka cad shalay kaba kala baxdeen oo muqdisho oo maxaa ku sida foosho xun 5 sano ugu dambeysay oo 2011 bay ka soo bilaabatay war 5 sano farmaajo ka ahaa oo cabduul sheekh oo saacid ku xigay oo cabduul sheekh ku xigay mareexaan miyaan ku ahayn mareexaan mid hadda samada ka soo degayba ma waanu ka mareexaan ahayn miyaa aragtay nin mareexaan oo halka fadhiya oo leh godobta tirsanay miyaa aragteen ana u sheegay caawo la hadlay oo u hadlay ma garateen waa dad sharaf leh ka daaya arinta qabiilka ka daaya nimanka habar gidir u badan oo hadda ku kacsana waxa leen habar gidir ka jooga habar gidir iyo mareexaan iyaga xulfo ahaa daarood iyo hawiye iyaga iska xigay habar gidir ma jirta iyo mareexaan habar gidir iyo mareexaan daarood iyo hawiye iyaga iska xigay war mareexaan maxaa ku raahday daarood waa dhabar jibay habar gidir buu raacay heshiis buu la galay xuluf la noqday kismaayo sidii ku qabsaday isbaahaysiga duxada jubbaal oran jiray harti oo dhan wuxuu ku laayeen meesha la yiraahdo kismaayo ogaadeen absame waa ku laayeen haye yaa xabad dhinac ka soo wada ridayay mareexaan habar gidir wada socda ka soo wada ridayay ninka dawladda Cabdulqaasim Salaah Xasan oo ra'iisul wasaaraha ka Cali Khaliif Kale taariikhda dib baa loo baaraya in wax lagu qaataa la rabaa anagu halkaas aan runta ka sheegayna dawladda Cabdulqaasim Salaah Xasan oo habar gidir oo madaxweynaha ninkaas ka aha ilaahay khayr siiyo salaamaya mar hore ay ugu dameysay 2 sano ka hor baa maqalkiisa ugu dameysay ninka Cabdulqaasim oo Cali Khaliif oo ra'iisul wasaaraha ka aha Cali Khaliif sababtu isu casli maxay ahayd إذا عبدو كهذي دجال كذا كسمايو أو مورغان باصور برهي دالي عبد القاسم بعيد مدري إذا ما دي الدولة أو وقت ياس لا يلي باكسمايو لوجو قبصة دب لوجو قبصة مريحة أو لا يساري مورغان يا هاين حبر قدر بهاين يا أقول مدين ومريحان بأقول مدين يا أقول هيلينيين تلقوا وقاعدين أقول هيلينيين يهرتي marka habar gidir iyo majeertay iyo mareexaan iyaga walaal ah haweenada daarood bay iska xiga ya galmudug iyaga madaxweyne ku xigeen isaga iyaga isuran dadka shacabka ah waa walaalo niman siyaasiyiin oo kowle oo laba le oo saddex le oo afar le oo shan ah ya oo hebel baa kala dilay ma garateen warada farmaajo ra'iisul wasaare ka weydeen hadaa wasiir ka weydeen dalku ra'iisul wasaare ma wada noqon karo dadku wasiir ma wada qaadi karo فقرة سومها نيون والبا رير والبا هالكا حل بالليل هاي هذا هوين هذا ما أنت وزارة الحاجين كرا إنه كسوة بيجتو رير هبل رير كدون هذا هاي سكديرتين ما أنت مدحونا نصيب كوكسيو قاضو لكن هداو ما أنت وحكم وايد دلكو الدنيا مش قينسو دتك الصوماليين هبل قدير ريحان iyaga Soomaali isaga dhow iyaga shalay daarooda kan hadda farmaajo lagu eedeynayo habar gidir sootel la socotay daarood ma jirteen mareexaan dartii maad u karbaashiisay oo halka waxa ku yiri qubuurahooda kismaayooda yaalin ma ogaadeen absamo dhan ma jirteen harti reer kasta soo dadka maaha maxaa in kaligiy soo kuwa galmudug wada dhistay maaha soo kuwa hadda gaalkacayo laba sanadkii hore bay aan u maleynaya haydi soo tii niman mareexaan oo iyagoo galmudug u dagaalamaya gaalkacayo lagu qabto lagu soo bandhigay sanad ka hor bay ahayd miyaa aragteen mareexaan iyo ma jirteen muddadii burburka ahaa wada socdo oo shaar daaroodnimo sito xabadda isku dhinac u ridaya miyaa aragteen ma dhicin taariikh intii burburka ahayd iyo ka horba maba dhicinba laakiin maalin kasta waxaan arkaynaa habar gidir iyo mareexaan wada socda oo xabadda isku dhinac u ridaya xulufa ahaydeen dad wada socda ahaydeen haddii waxay ka khaldameen gacmo gal jiro hoos baa loo dhaqaa ninka la yiraahdo farmaajina maaha nin mareexaan looma qaban karo madaxweyne qaran Soomaaliyeed weeye looma dili karo ma garateen qaran Soomaaliyeed daarood looma qaban karo waa nin Soomaaliyeed oo madaxweyne ah weeye nimanka laakiin shafka garaacaya oo arinta mareexaan ka dhigay baan anugu saa'ula hadlaya oo siyaab bare oo iyo barnaamijyo waaye hore ah ya cajalada dib u daariya kuwa way kuwan anugu la hadlaya farmaajo madaxweyne Soomaaliyeed weeye mareexaan ma dooran qaran Soomaaliyeed baa doortay kiibu meesha u jooga kiibu u shaqeynaya hadee mareexaan iyo habar gidir tahayna iyaga adeer iyaga iska kaaya badiya iyaga wada diga bela taqaan iyaga is yaqaan iyaga wada diga hadee isu fiicnaadaana nabad bay ku wada deganayaan hadee isku xumaadaana dagaal nin walba wuxuu ka helo waa garanaya dagaal hadaa qof dishana helo naar hadii lagu dilana dhimatay helo naar baa waxna dishi lagu dil
dagaal qabiil waka marka waka hala share gareeyo commentiyada waa akhriyaya reer walba oo halkaas qora magacooda oo soo share gareeya waa la taabanaya wallahi baanan reer warag uga tagayn wallahi baanan waxaan ku raahday mugulo uga tagayn wallahi baan maartay maxaan ku raahday abisalaq uga tagayn oo raxweyn ka tirsan reer walba Soomaali TV-yada Soomaalidu leedahay iyo website-yada looma sinna reerka weyn reer walba website buu furtay reer walba TV buu furtay reer kasta shilinkiisa website-yada laga soo daayay TV-yada dadka codkooda maartay meel ay mariyaan waayay Facebook-ka kunku daawanayo oo shiino culi baa laga sideeyay wataas ilaahu aan beerka beelin Muuse bixi maanta Djibouti buu tagay horta Ismaaciil Cumar Geel waa salaamaya Djiboutina waa u soo socdaa ninka nin Soomaaliyeed weey Ismaaciil Cumar Geel Soomaaliya Ismaaciil Cumar Geel abaal baan Soomaaliya oo dhan waajiba inay u hayso anna waa u haya aniguna waa u haya wixii wax garadana waa garan karaan Soomaaliya intee burburtay oo saaxada ka maqnay Ismaaciil Cumar Geel baa u taagnaa oo kursi walba u tagay oo ma sha Allah Ilaahay xafdiyo Ismaaciil Cumar Geel inuu oday weeye amaantana waa jecel yahay baa la yiri iga gaarsiiyay markaan too hay soo dhaweeyay marka Soomaali nin oday weeye waa Ismaaciil Cumar Geel si fiican Muuse maanta waa soo dhaweeyay reer Sheekh Isaaq Facebook ee sawiro waa kana Muuse waxa soo dhaweeyay Ismaaciil waana la aqoonsanaya waa sax weeye Muuse si fiican baa loo soo dhaweeyay ana karaali ah madaxweynaha aniga haduu yimaado baa soo dhaweyn karaa waa caadi weeye nin weeye neef loo qalo wax ka badan cunimiye waa caadi laakiin Djibouti dad Soomaali waa wada tagtaa raxweyn Sheekh Shariif qaadano salaanta loo wada saar raxweyn oo baydhaba ka yimi 500 mayl u jira 1000 mayl u jira baa la soo dhaweynay ininku waa u dhowdihiin be ininka ku xid buubay in leeyahay be ininka inuu xaq inta ka badan soo dhaweyn inta ka badan baa xaq u lahaydeen be Abdul Ali Gasso ma jirteen Ciise baayadoodu isgaarin iyadoo airport ku salaan u saarayo waa aragteen ka hadlimay anu madaxweynaha Soomaaliya Ismaaciil Cumar Geel nin Soomaalidu way reer walba soo dhaweeya aniga laftigay tulkay marka calaamada ay xiraan inta Muuse waa ka filaya haddaan ma artay seedinimada aanu iga helino isaga iga roonaan taana eed malay ninku xidkiisa hadduu si fiican u ixtiraamo wax fiican weey marka taas aqoonsi ma soo dhaweynayso waa la socotaan nin walba oo maamul goboleeda ilaa Axmed Madoobaha Kismaayo xaartay Ismaaciil Cumar Geel invitation rasmi ah intuu diro soo dhaweynay Ismaaciil Soomaalinimada midnimadeeda waa adkeeya waa ku taageersanahay nin oday weeye ku sii wad Soomaali waa hore kala go ilahayd Ismaaciil baa ku taagan waa la og yahay abaalkaana waa u haya abaalkaana u haya Soomaalina waa u haysaa ma sha Allah weeye Muusena quruxda shacniga wanaagga waa warninkaan oran jiray ninku ma qodooda gurigiisa laga seexdaa maanta sawirada markaan ka hanaanka sharafta haybada alla kursiga cajiibsana ninki muxuu isbedelay qurux badana ninki Muuse hanaanaanu lahaynba oo aanu hadaa maxay noqday la isbedel lahayaa carabtaan buu ka lahaabay ninki Muuse oo maanta saa booliyo roog casa u dul maraya arkay Ilaahay barwaaqada ku siyaadiyo Muuse Ilaahay barwaaqada ku siyaadiyo ku duceeyay hanaan madaxweyne oo aan wallahi kaafilin ba maanta la soo baxday Muuse roog caskiyo ugu socday jag askar saa u salaamayso arfiicana oo Soomaaliland miskaada arfiicana meeshu arisaaq waxa kelmiye waxa kelmiye ku ila jooga ku dulman wallahi أنا سلام صاري مات سو أسعد إنك حتى جك روك عصبة لورد جيو أسكرتي حتى سلامت ولا إلا وكوا صعب مش وتاجنا إنه قعدت قالان جعل عرف نافي إنه ما كاحترام بقول كل مدوية نيد كيري فيسبوك أنا قطعونية مركب موسى شعني هناك تتكاس تتصومالي دوي صومالي ما كلام عرب موسى أيام واجه نن بلا فوق بنكو قبي أو حق جرا لكن هذا الكاج واجد دم وافعنا شرف بنكوها يا أولي الصوماليات بعتوا إلى هجوب بيهاي أو عليك أو وهي اسمنا قانون ولي اسم عرق وأسيسر كدونا هدي لنا كده مرككو عايمي حاشا وجود نم عليك أو وهي لك وأنا أقون عايمي وأول أمر بعتهاي حكر بيد مرة دي مارتي dad baa ku doortay marka haba yaraadeen ama trabadnaadeen inkasta waa la ekaadeen
doorashada xaqii xalaal kulli waa laga cabanayay yeelkadeeda dadka Soomaaliland waxay doorteen halka reer Sheekh Saacid ay doorteen annagu waa taageersanahay waa ixtiraameena rabitaanka dadka booqasha jirta waaga kan usbuuca kan adduunka oo dhan laga hayay TV-yada xataa halkan waxa way galbeedka waa ka daawaday nin wasiir oo la yiri Jamaal baa la dhaxaa Jamaal Xasan oo warsangeliya baxir warsangeli tigay dhulkoodii buu tigay Somaliland xuduudii baa lagu soo xadbuuxo anoo yaaban warninka min hawiye aba halka maray oo Somaliland ka qaylisay maya wama raxaween ba maya wama jeerteen ba maya waayo waa warsangeli xageetii baran xaga miyuu dhaafay cirgaama gaaray maya xageetii oo kale dhahar oo maxaa isaa ka qeylaalsiinaya day saa waxaan jamhuuriyad madaxbanaan baan ninkan Soomaaliyeed wiiyo wakaasa Allah yahdiikum ya akhi anu kismaayo Muuse bixadu dhaho gabilay baan tagaya ama Saacad Cali Shir gabilay baan tagaya dhaho ama Ciro dhaho gabilay baan tagaya miyaa ka hor istaagi kara anigu tamaya wala ilaa war aqli waxa shaqeeya ya akhi nin warsangeli oo dhul gurigiisii yimi oo wasiir ah oo adduunka dhan laga aqoonsan yahay oo dawladda aqoonsan yahay shaatigeeda huwan oo TV-yada iyaga isku canaananayaan mucaaradii maxaafid dawladda xadkii xiri weedo dawladda xadka xitaa maxay tahay dawladda isaaq dhulkiisa waa joogaa isaaq dadka dhulkiisa aadaya Soomaali 91 haday dirtay reer walba goofkiisu ootay reer kala doonaya xadkiisa inuu qaato wallahi isaaq baa laga hayaa cid walba dhulkeedu waa ilmaastay hawiyaha Sacadka iyo Umar Maxamuudka gaalkacay ku diraraya ملك قال كعيان ولا قادنا عمر محمود ساعدنا ملك قال كعيان ولا قادنا معناه هل كان حدكو هاي حق وحدكو على السكوية لكن الساق يسوي حليه هل كا ميل أو قضية هرتيها كو أصلا دارود قضية إسماعيل يدمروا كو أصلا تاي بورا بقى إساقين وقاتو وإساقوا هذا الكلام سوق بري دارود من مست يا هناك بجلس سو دمبردر إسماعيل دبرت هلا كان يكو أصلا هنا هايلان سو دمين مسيتي ودومينيسا خير اللي من مسيدي مركا هذا ريال عقله هالشقيو حدا ليا بنا نمعان هلاع ويمي بورمي بال حري او يا الله كبحصدي او ابيه ولي خرين maxaa loo xiray wiil yar fanaana siyaasad shaqo ku lahayn gurigiisa yimi hooyadii aabay soo booqday way loo xiraya sabab maxaa loo xiraya anigayga saan la xiri karin hadaan tago boorame allaaba kii xun dhurtiis ku aasnayday عقله وهالشقيو موسى بيحيو قبيلة يوجاله هذا صادون تو قلقلو بعد كاعلنس يعد قبيلة بيتجي العرب إنا الجمال أو ما تقول كسيمي أو دتكم مسؤولية وهي دولة فدرالك دتك مقعد الكتوجا يجوا كم مثلا سومالي 4.5 بحقوق يبستا قبيل بحقوق يبستا والسنجل بمش كتوجا قري سيبوي هو يديس باجوك تلكي باجوجا هدوه من وايو والدعوين يعني حلك على قاضية إنا ما أنت كم رأته موسو أديك يوم عارض محافظ بسومالنا هلك سو هذا شو وقدر روي أبى كم رنتي دي محا وجه يوناج ورسنجلي أو هسا nothing محا هسا دولت بصور بستي هل وزير بهم حاولي يا عربنا لبا وزير بحسيسي عرب أو مشوا ساق جوان نقول أقنا هلك كل ديران مية لبا وزير أو فول أباسيسي ده بدن بعاود مقعود برانية عرب لبا وزير أو فول أباسيسي أو بهالكيل عيد قلم مالية باسيس هي ورسنجلي محاسيسي ورسنجلي وسارة قاشاندق ورقاشاندق دولة أقونسين هاي بايلتا maamul goboleed ma yeesho aan aqoonsanin gaashaandhig halka laba kun oo ciidan oo Ismaaciil Taani oo Sacad Muuse in adeerka ku hortaagan yahay baatir Warsangeli baa gaashaandhiga jooga oo in Taani baa ku hor jooga ciidankii Warsangeli xagee jooga xafiis cidla halka ku qaato mushaarka ku qaato marka adeer Warsangeli wajiga oo haysan xuyo Warsangeli dawladda federaalka waka wasaaradda qorsheynta xiriirka caalamiga maalgashiga dhiiri waxaas ay haystaan 7 xildhibaan bay ku leeyihiin Soomaaliland 4 xildhibaan bay ku leeyihiin Soomaaliya oo dhan todobay ku leeyihiin marka waji uma haysid hadaa waji iyo wanaag u haysid adeer waxba siin lahayd dadka u dooday soo leedahay waa kan hadaa maanta wasaaradda fiican siin lahayd annaga oran lahayn halkiina jooga halkiina sako warma ka waxina la gurtaan oran lahayn tay uma haysid waji wanaag nimcan hilaaca iyo samroota bacbacsanayso maxaa u haysaa hal wasaarad oo la taaban karo oo magacooda ii soo sheeg beeraha biyaha maxaa ku dhahday waxaas maxaa wasaaradda arrimii dibadda مالية دمياذي أرمي دبد مي هبر والباسي أرمي دبد هبر والباسي مالية دمياذي
waxa siisay ciida galaa siisay maxaa ku dhahdaa arrimi guduumay harja ala siisay maxay tahay marka maxaa meesha yaala habar jeclo waka habar yunis waa halkaas waxa nimankii waxa weeye kursiga kugu qabsaday weeye marka samaroon biyo iyo beero war samaroon dawladda Soomaaliya federaalka oo adduunku saa lacagta ugu harqinayo samaroon maaliyadda joogan shilinka muqdisho la isku haysto samaroon baa marti loo yahay ya farmaajo bariiska gurigiisa lagu kariyo samaroon baa soo saxiixda halkaas Soomaaliya 12 xildhibaan baa muqdisho ku leedahay intee ku leedahay Soomaaliland 7 xildhibaan intee wasiir ku leedahay beeraha iyo biyaha Soomaaliya maxay ku leeyihiin maaliyadda wasaaradda la isku haysto habargid hadii maanta maaliyadda aan farmaajo iyo habargid dhex galo oo maaliyadda uga keeno wallahi billahi habargid wow de wasaaradda culus weey ma arrimaha ka dibadda lagu sheegayo waxa ma jiraan maaliyadda waa ninka shilinka dekada saa hor fadhiyo 10 milyan 8 milyan oo Sacuudigu bixiyay ninka lagu shubay samaroon weey marka adeer cidna wajiga wanaagu ma haysidee reer tolka meesha u joogtaay ana tolkayba u joogaay Facebook ay adeer tartiib muuso gabilay wajaale dhulkaaga barakayso xaafad wuxuu ugu gudto xasarad weey Soomaali nin walba waxa weeye gurigiisu ootay gurigaagi waa oodatay nabad baa ka dhigatay horumar baa u wada waa ku sharfantahay laakiin dad kale xabad u geynaya koonfuriga degimayso waxa la asmici karo ma aha muuso aqligaasina aqli aan xagee ka shaqeyn kara kulay ma aha wataas ilaahu waan beerka beelin komitiyadaan akhriyaya qofkii sheergareeyo komitigiisa ay soo baxaya qabiiladii ma dhuwa yareerka waliga gadaal baan dhigaa hadaa yareerka weydeen waa gadaalba waa soo socdaan halka komitiga soo qora reer walba waa la taabanaya qabiilku waa cudurka inuu dilooday daawadiisa in la helana muhiim waaye waxaan kaloo halka waxaan ku daraya maalin dhowto waxaan waa sharaxanay Puntland baa u sharaxanay dad baa iga faa'iideystay oo sharaxay Puntland maxamuud salebaan ninka kaliya Soomaali jilibka u dhigi kara aniga weey Puntland waa horaan qabsan lahaa ninka Cabdi Khadar baa waxa isleeyahay ninka odayga ameesha wax badan shaqo badan buu hayaa shaqo wanaagsan buu hayaa ku cidhiidhin maalinta uu yiraahdo ma sharaxnina wallahi way sharaxaya dad baa lacag ursanaya la soo sheegay Puntland oo bahalki hadda halka ka magacaabay oo maxamuud salebaan baa bedelayna war maxamuud salebaan nin walba oo musharaxa waan maxamuud salebaan ahayn nin maxamuud salebaan u shaqeynaya oo soo dirsaday oo soo sharaxday oo wallahi anigu maxamuud salebaan ninka la tartami kara oo xataa haday ka guuleystaan bulsh xaara sa u marin kara waa aniga weey oo feelashooda haya oo kiyaalaha iyo timaha cirada waxa iga dhigay Maxamuud Salebaan weey waa la socoteen milafkooda qaramada midoobay golaha amaanka wallahi waa hordhigay jaamacad waagay meel waagay musharaxa dhabta waa aniga beelaha yareerka waxa ka codsanayaa Maxamuud Salebaan lacag cashuur ay qaateen bay haystaan oo ku tartamayaan yaan shilin reebin akoona la soo furaya waa idin soo sheegi doonaa waa ina anu Cabdi Khadar intuu joogo meesha gelimiyo nin oday weey laakiin warbaan ka sugaya maalinta uu idaacada ka hadlo doonimayo musharaxa dhabta oo beelaha jarjarka wuxuu soo celin kara aniga weey ragga kale wallahi waxay doonayaan waa wasiir doon aniga Maxamuud Salebaan waa la tartamaya wasiir baana ka qaadanin wax kale ka hadaan ka adkaadana la dhacaya wasaaradaha xataa deegaanka iyo sagaara bacowga iyo maxaan ku rahay ari qalowga iyo kuwaas aan dhiibiya muddo wadanka haysteen leelka saa iyo dishiisha iyo bursingaliga iyo kulbaantaha iyo carab saalax iyo ilaahay barkama reer waragga iyo ilaahay barkama maxaan ku rahay maysusnaa iyo ilaahay barkama maxaan ku rahay kumusoor iyo maxaan ku rahay shalan jabay iyo maxaan ku rahay duraad baanimi iyo maxaan ku rahay meeshu waa jilaal iyo beelahaas aan wasaaradaha fiican siinaya maaliyadda reer warag arrimaha gudaha shalanimi maxaan ku rahay gaashaan dhiga shalan degay ilaahay barkama kaskee qabe arrimaha gudaha dadkaasaan 5 sano dadka Puntland laba dabaqadood bay kala noqotay dabaqad dhulka ah iyo dabaqad cirka ah
waa simaya dadka 20 sano dadka wuxuu cunayay iyo kuwa kan wuxooda la cunayay waa saasaan u simaya musharaxa kaliya oo jarjar wuxooda u soo celin kara aniga weeye 0.5 Puntland 3.5 baa ka jira 0.5 ninka soo kicin kara oo 6 meesha 3.3 ka dhigi kara aniga weeye waxaan idin ka codsanayaa marka ina aniga isoo taageertaan ragga halka cali xaaji oo muqdisho ka hadlaya arkay meesha la yiraahdo maxaa ku raad Nairobi dastuurkii Puntland maxaa ku laascaanood iyo dowlad goboleed baa u dhisaya dowlad goboleed ala hadiik adeer hadaa laascaanood dowlad goboleed u dhigto ursan gal maanta isku daraya buu sheegay maxaa meesha haray SDF baa meesha dadka SBF xagee ka kadmaysa حاجة عقل تانيكو دستور كبير جبيه على حاجة اسمه شرحي كرو دستور كجبيه بنتلان مدوي يا غير دستور كجبيه خلاص على حاجة نعم محكمة الله فولينا دستور كجبيه كلها ما من قبلات كلام مش كسارية هدا أدير ردت سعته أو أدو ساعة راع أو ساعة راع عمر محمد ساعة سكتر عمر محمد هلك أنت صار ستورير مهد ساعة لقل أنا أنت كلام هرد أنت كلام أنا يسكت دوين إنه مارتي مالها كشاهيني أقرأ تسمعها marka ummadda Soomaaliyeed oo dhan anigu doorashada marka aan sharaxo tribki dhaweyto shilinba yuuskarad arrintiisi baa inay taabanaya sababta xilka looga qaaday yuuskarad yaana kala tagin yuuskarad taasaan taabanaya marka anigu ninka Soomaaliyeed oo meel walba iska sharaxi karaanay meel walba taa isaaqo iska sharaxi waayay barkay dastuurka ku qorteen saddex hebel baa sharaxaya dastuurka iyagu qoran tahay laakiin Soomaali maamul goboleedyada kale koonfur galbeed ka bilow kismaayo ku xiji jawhar mid walba waxa ku qoran qof walba muwaadin kasto Soomaaliya ya waa sharxi kara meel walba iska sharxi kara isaaq isma sharxi karo isaaq saddexda jifo oo halka maaragtay iyaga unba samaroon ba xataa iska sharxi kara anu xagee jooga marka ummadda Soomaaliyeed oo dhan doorashada inay ugu taageeraan baa rajeynaya akoonaa soo furaya tribkii horeeto baa shilin reebay maanta anigana shilinka ay gelisaan wallahi lagu khasaari maayo maxamuud Suleymaan jilibka ninka u dhigi kara waa aniga lagu khasaari maayo markay u yartahay runta waa nacib yihiin baan saa u hordhigaya inta baarlamaanka tago sidii salaa cali jalaafka furanaya waana dhacdeen Soomaali wayni ka degi weyni ilaa waana beerka been wasiiradii fiicna waa haysataan shantii ninoo meeshtan iga horeysay waa shan ilmaadeera soddon kan ila tartamaya waa soddon ilmaadeera wartolaaya iga qabta saasaan u hadlaya anigu oo wallahi hadda iga soo bixisaan lacagta la isku diiwaan geliyo يا وتوك تساو إلى أرديسة ورلعكت يستان لعكت عشورت وي ورانو أنا جوا شيل ما حيستو ورنت عن سوستو ولا سوجي اسمه ورسومالي ودم بقى كنتي ساسا والله فرنتي لا تعتلو بها سيد سلاع الجل هوية الساق رحوين غير ربع كان بينك يوفرين هاي وكسر ريسان أكون هذا وإنيسو شيء بدونا دوان بانفريا غير ربع أفرين وما الصوماليات وأيو سوريديسا كوا هاد أوهيم ولا صاري إسكتها وحنا هذا كي يجعلين محا أوهيم توصاريسا تك هذا يجعلين أوهيم بسو صاري كوا بدل مالك سو صاري هاي تك ميشا مقاحدة إن لو فرحان ولو قصلان مدبا أوهين هاي محا كا أوهين يدي محا كا هيركين هدا جعيشة إن هذا تاون كوا يجي بماهر أدر شد بني يا وهذا وحنا يجي بسدر هذين إسكتك قف قبيل مدح مري أديك ما بكو أقان ما عاجن مش يجيني محل أويسا أديك محل أويسا هو يلا ميان مش كشيء أباها ميان كشري مايا قبيلة كان هوج وقالوا يسمعوه كويجي أنا هدا واحد يبيني والله وكذا نايس كتك أديك ماشي قبيل صومالي أنا يفهمني أنا يتبع حسب صومالي نيني قبل يتبع حسب أنا كصومالي ما أنت لو تراشي خصها والله اللي يفهم وين تبع حسر هدي واحد لجارسي إنه ضيق السولوليو رير حشي خصها قب ويا الأورنجري تدوح فهمين وضيق شفير وجاي يعني ويفهم وين تبع حسر dagaal iyo diyaar la saaro iyo xabsi la dhigo iyo ul la dhaco iyo huddo lagu jabiyo iyo soddon technical oo la keeyo iyo TV la fariisto iyo reesha xisaab waxa dabca sar ma baahnay dabca sar tak cimaamad boqorka shanta Soomaaliyeed tak oo xagee waxa ka qabta xagga idinsan dubaaqa igu taal dubaaqa waa simeena iyo waxaaga oo dubaaqadu waa inta odayga خلاص وسو halkiisa Soomaali ninkaas ay gabdiyay intaas fahmi weydeen markaasuu inuu ku galgashayo ilaa Mareykan aqoonsigii soo dhawaabo doorashadii intii sharaftii yareedii keentay dabca sarbaa cunay doorashadii amaantii yareed dabca sarbaa laqay
yuusuf garaad xilka sababtii looga qaaday baan sheegaya hala sii sheer gareeyo qabiilada waa gelaynaa reer walba halka ka sheegaynaa waxaan uga sheegayaa cabashada ay u batay reer walba luuqu soo gelaya reerkayga ma sheegin reerkayga waa ka tagtay bahalkii waa ka tagtay shalaan digay ma sheegin anaa imi shalaan ma durhad baan digay ma sheegin shalaan imi ma sheegin marka cabasho aad maskaxdeed ma xamili kartay halka hadda reer walba waa sheegayaa yuusuf garaad waxa xilka looga qaadaa inii sheegaya waa taageersanahay in xilka laga qaado yuusuf garaad waa nin wax barto fiican laakiin sababta cilladu weyn buu yeeshay ninka cilladu yeeshay waxay noqotay yuusuf garaad meesha xisbi kuma iman xisbi soomaaliya xisbi qofku kuma tago soomaaliya qofku aqoon kuma tago maybe mararka qaarkood laga yaabay aqoonta in la tixgeliyo hebelka waxbuu yaqaanaa in xoogaa macnaa oo meesha qof gal jira meesha ma tago waa la ogyahay taa xoogaa qofku soomaaliga ma akhriyi karaa ma qori karaa yaa ingiliishka ma ku fiican yahay oo ergeyga qaramada midoobay isaga ma loo kala turjumaya mise waa kala turjumaya mise waa la hadlay yaa carabta hadduu tago carabi wasaaradda haddii loo dhibo maaragtay carabta hadduu tago si fiican moo soo gacan mari karaa waxyaabahaas hadda wax lagu xeeriyaa yuusuf garaad 4.5 baa wax lagu qaybsadaa habar gidir booskoodii buu qaatay boos shilisaa la siiyey wasaaradda arrimaha dibaddu waa eeda weye farmaajo khayre waa la hadlay waa ku canaantay arrimaha gudaha habar gidir lahaan jireen weligood ilaa dowladda cabdullaahi yuusuf ilaa wixii ka horreeyey arrimaha gudaha ilaa dowladdii cabdullaahi ciise xataa arrimaha gudaha lahaa aadan cadde markuu madaxweynaha noqday cabdullaahi ciise arrimaha gudaha sooma noqon ha weligood arrimaha gudaha iyagaa lahaa iyagaa waddankooda xuduudaha iyo xuuda iyo dowladaha hoose waxa iyaga iska bacbacsan jiray marka arrimaha gudaha in laga qaado waxay ahayd mistake bay ahayd oo majarteen loo geeyo oo iyaga arrimo dibadeed oo samaroon iska maartay dadka kasoo tahriibsan jirtay oo fiisayaal safaaradaha ka qaadan jirtay habar gidir in lagu lugooyo horta khalad bay ahayd haddana waa laga daba tegay taladeediina in la qaatay ilaahay xamdigii weeye in habar gidir arrimahoodii gudaha lagu celiyey waa ilaahay maxadii weeye dadka maba dhoofaanba iyo safaaradahan fiisa ugama baahneen taa horta alxamdulilah weeye yuusuf garaad marka khalad ku sameeyey baa waxay tahay yuusuf garaad wuxuu sameeyey meesha xisbiga uu ka yimi xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ma ahayn xisbiga dimuqraadiga ma ahayn xisbiga jamhuuriga ma ahayn xisbi 4.5 ah oo habar gidir la dhaho ka yimi qofka wasiirka ah reerkiisu metelaa dowladda ku metelaa laba mas-uuliyadood baa saaran qofka tan qaranka marka laga yimaado qaranka inuu shaqeeyo waa loo dhaariyey waa taa qaranka hawshiisa marka laga yimaado laba mas-uuliyadood baa qofkaa saaran kow mas-uuliyadda koowaad waxa weeye reerka iyo dowladda inaana u kala xigsado oo dowladda uu reerkiisa ka xigsado ya waa mas-uuliyadda koowaad weeye inuu kala xigsado oo reerkaas mas-uuliyadda koowaad waxay tahay habar gidir ama beesha uu wasiirka u yahay dowladda waxay xaq uga leeyihiin hadday leeyihiin agaasimayaashu waa nugu yaryihiin hadday leeyihiin deegaanka iyaga mashaariic lama gaarsiin hadday leeyihiin waxa aduu reerkaa habar gidir ama reer kastoo soomaaliyeed in wasiirku reerkaa uu matelo dowladda waxay xaq ku leeyihiin iyo waxay ka tabanayaanba inuu uga keeno oo reerkayo maxaa rabtaan reerka u dhiga fudaado maxaa rabtaan laba agaasimo guud baa la magacaabay labadiiba abgaal baa la siiyey laba kalaa la magacaabay reer hebel baa la siiyey agaasimo guud ma haysano inuu ordo madaxweynaha u tago magacow agaasimaha ninkaa u magacow weliba waa nin fiican reerka fiican ororday loo magacaabo okay taas waa mid mas-uuliyadda labaad waxay tahay dowladdu waxay reerka uga baahan tahay inuu uga keeno oo maxay tahay dowladda inay reerka waxay uga baahan tahay inay dowladda reerka inuu dowladda la shaqeeyo oo aanu ka shaqeyn in madaxweyne aanu reerkii maaragtay ka harsan waayin inuu reerkii iyo adigu muhiimadda waxa inuu reerkii iyo dowladda inuu kala xigsado yuusuf garaad 7 xildhibaan oo reerkooda ugu jiray baarlamaanka laba marka laga tago 9 xildhibaan 8 baahayn dowladdu waa ka harsan weyday waa mucaarad waa ka dhaqaaqi lahayd maxay tahay marka macnaheedu waxa weeye yuusuf garaad reerku kuma qanacsana yuusuf garaad reerka ma matalo yuusuf garaad reerka iyo dowladda ma kala xigsan karo de marka nin reerkaas waxay dowladda ka tabanayaan habar gidir waxbay tabanaysaa Soomaa dowladda waxay ka tabanayaan nin uga soo qaadi kara haddii yuusuf garaad aanu ka soo qaadi karin in la keeno waajib bay ahayd dowladdaana nin reerkaas ka xigsada oo madaxweyne iyo ra'iisul wasaarida aan reerkii u gudbin oo maartay laad la dhicin isagu laadkii isu dhiga uu noqdo ninka la keenay nin oo kullay waxa weeye hawshiisa wato buuqiisa wato aydiidu ego soo gubtay buu leeyahay ka ma aqaan horey uma aqoon laakiin
waa la ammaanay nin cayro fiican weeyaa la yidhi marka hadda waxaan rajaynaynaa habargidir iyo dowladda inuu ninkaas kala xigsado dowladda habargidir waxay ka tabanayso hadday shan agaasimo guud xaq u leeyihiin oo ay tabanayaan shantooda u keeno buuqa halkaa lagu damiyo yuusuf garaad wuxuu sheegay inaan aniga dowladda iyo aan diiday in arrimo qabiil galo de reer qabiil reer habeel baa meesha ku timi ma anaga wasaaradda arrimaha gudaha arrimaha dibadda aniga lay dhiibo musharax shilin ku reebay muxuu madaxweyne u noqon waayey yaa iga aqoon badan soomaali maanta haddii aqoon la isku tixgelinayo shan shahaadaan sitaa waa taasaa ka kow ah yaa haddii la isku bahalkaynayo maxaa aniga halkaa joogto lay geen waaye qabiil weeye meesha marka qabiilkaagii wax ku heshay haddaa madaxa saari weyday oo xagga u wadi weydo maxaa inii macaan maxaa inii kharaar oran weyday dee adeer in lagu bedelo xaq weeye haddiidin idaacaddaa la iga sheegay maraykan baa la iga soo wacay waa caadi weeye xilku waa meerto ama idaacada lagaaga sheego haddii lagu sheegi lahaa soo inta carabto ma tirahdeen dowladdii reerkaygii bay weerartay way iscasilay oo arrinta naguma fashilseen oo dowladda meesha kuma ciboodin ila saas oran lahayd haddii lagu sheegi lahaa haddii lagu soo waco waa xilkaa laga qaadayaa idaacad baa marka wuu celiyaa halo goobjoog miyaa ama BBC ba ahaa ways casilay Yuusuf waa wasiirka arrimaha dibadda way Yuusuf kala haye ways casilay maxay soo casishay dowladda reerkaygii way ka dhamaan weyday see uga dhamaan weyday shalay waxay weerartay Cabdiraxmaan Cabdishakuur haye maantana gurigiisa qaybdiid bay u dhaceen haye marka ways casilay reer saa la socda maxaa dhacay dowladdu war meesha dowladda ma jirtay meesha dowladda dad duulaanku awooyay haye dadkayga duulaanku tahay waa ka degay dowladda xilkii waa ka tegay intaasaa oran lahay marka in lagaala horeeyo ila Soomaali way isfahmaysaa xaq bay ahayd waa caadi juxe lamid waa nin fiican juxe Yuusuf waa nin fiican weey labadu rag odayaal weey respect badan baan u hayaa nima fiican weey airportka anoo sii socdaa oo garow u socdaa la isu sheegay oo haddaan lagu soo sheegay diyaaradda adoo sii socda garow markaa tagto oo habri ciise maxamed halka lagu soo tubo oo idaacada lagu keeno wasiirka arrimaha gudaha yimid ma maqlaysan ha ways casilay haye maxaa dhacay waxa idin sheegayaa meeshii muqdisho ahayd dee dowlad kaga mayman haye shuftaan kaga yimi haye marka ways casilay tanaa u sharaxanahay tan dalkan u shaqaynaya halkaa meel bale ay ahayd intaasaa oran lahayd marka dowladnimadu sidaas ku jirtaa waagii hore dowladdii jirtay kacaanku iyo dowladdii ka horreeyayba qofka warqad baa loo diri jiray warqad guduudan baa la oran jiray warqadda waa laga cod bilaysan jiray warshadii hargaha maraan ka shaqayn jiray subax bay ii timi warqadaas waa furi kari waaye laba beri markay meeshii taallay baa maalintii dambe la furay oo iska socaalay igu yidhi warqad guduudan keliya waa guduudan tahay saa marka loo furo waa ku mahadsan tahay shaqada qaranka oo qabatay khayr allaha ku siiya iska tag bas furayaasha noo dhig saasay dowladda oran jirtay kaa hooseeya furayaasha noogu dhib khalaas marka dowladnimada ku jirta waxba la isu sheegi miyo haddii la isu sheego waa la kala hordhacaya dowladda waa fashimil ahayd labada nin oo loo sheego is casila waxa dowladba kama hadlaynba waxaan ka hadlahaynba ma jirto marka ummadda Soomaaliyeed sharaf baan kala mudanahay anuna waxa weeye waa musharax shilin ku reebay qabiil kama dheera laakiin in laga hadlo oo waxa loo baahan yahay kunkaas ima daawateen intaas aan u baahnaa in la dhigeystaan raba haddana qabiil ka hadlin yaa adeer daawan lahaa soo cidla kama xiqeen halka shan qof sida wadaadada meelaha ka hadla wadaadada suufiyiinta halka kama hadleen caadi qabiilka anaga wixii la dhigeysanayo anu kaasaan fahmay kaasaan bartay kaasaan maartay si fiican u kala aqaana haddaan hawli sariirta galo aqoon badan waxa weey macasaro iyo hadda ma gali karo ilaahay baa igu toosan halka haddaan ilaahdo wadaad baan ahayo isu oohiyo bahalkii xaggaana waxa weeye wadaad miihi anigu waa nin faatixadiisa u yaqaana saddexdiisa qul wali ku tukada baan ahay marka qabiilkaas bay iga shidan tahay in la daawadaa muhiim ah ummadda Soomaaliyeed inaa fariinteeda gaarsiiyaa muhiim ah 100 kelmadood marka inii sheego 2 kelmadood baan ku soo darsanaya dag wayna soo gaaraysaa khalaas waa igu dhantahay intaas igu dhantahay ummadda Soomaaliyeed Allah idin sharfo commentiyada akhriyayna qofkii share gareeya commentigiisaan arkayna qofkii share gareeya baan sawirkiisa arkayna hargaha iyo lafaha waaga ka shaqeyn jirtay Ali Caato waa karani uu ahaa warshada hargaha saamahan u maleynaya Ali Caato inuu ahaa karani warshada reer Puntland baa ugu noqonaya wax yar
reer puntland baa ugu qoran niman burcadaa soo baxay oo cabdulle cali gaas ku dhegan cabdulle cali gaas safarkii ugu dambeeyey oo xasan sheekh madaxweyne soomaaliyeed uu puntland ku yimaado garow boosaasu ku tegey garoonka wuxuu furay diyaaradaha ee boosaasu furay ya kelmadaha qadarkaas waa ku darsada garoonka airportka boosaasu furay yaa ku xigay madaxweyne soomaaliyeed 2016 bay ahayd farmaajo ku xiga dhamaadkiisii waliba farmaajo xagee furay wuxuu furayaa bari garoonka garow furaya nin kale yaa farmaajo waxaan wadaa cabdulle cali gaas horumarkaasuu inii wadaa war ninkaa daasta war mid habaar qabo gaajisana yuu idiin iman war yuu idiin dhicin war mid wadaada oo saflabooda war yuu idiin iman war nimaan kuu furi doono yuu kuu rarin baa leeyahay war cabdulle haysta war gaajo kuma ogi war aqoon xumo kuma ogi war waxaan ku iri dadnimo xumo kuma ogi war afqaroocnimo kuma ogi war maaragtay maxaan ilaahay waxaan ku nin lagu qado kuma ogi war ninkaa waa nin odaya waa idiin shaqaynaya si fiican buu idinku khidmaynaya qabiil waa ka madax bannaan yahay dadka ka cabanaya waa reerkiisa u badan yihiin ninkaa deysta laba ugu dhufta haddii ay idinku adag tahay oo meel laga maro dastuurka la waayina adeer doorta mar kale shan iskaga doorta waxba ma haysanto bari dhamaanaysaa mareykanku madaxweynaha Trumpka hadda la leeyahay maskaxdu ka jiran yahay hadduu isharaxo tiriibka dambe isagaa la dooranaya mareykanku qofka laba tiran buu doortaa sababtoo ah qofku 5 sano hore waxbuu fahmayaa 5 dambena wuu shaqaynayaa 5 sano hadduu gaajisna waa dhargaaya 5 dambena dadku waxay gaarsiinaya laakiin maalin walba markaa mid joogay markuu 4 sano fariisto oo meeshii la qabsadayo dawladii bartayo maxaa ku raahdaa sida carabta loo soo bartayo ilaahu aadan beerka beelin sida maaragtay gaalada waxa weeye wax looga soo guro bartayo siyaasadii fahmayo dawladaha deriska ah sida maaragtay loola heshiiyo bartayo maasha Allah noqdo dadkii qabiiladii kala barto indhu kala qaadin ba maalin walba bedelaysa cabdulle cali gaas ka bilaamayo faroole marxanta iga heedin war daastaan in ku iri daasta waa iga diiday faroole daastaan in ku iri waa iga diideen maanta halkii anu isma bedelo halkii baan taaganay war daasta war mid gaajaysan iyo inii iman war mid walhaan iyo inii iman war mid habaar qaba iyo inii iman war ninka daasta war waan odaya war wadu dhisay war mid kale u dhisay war ceel buu qoday ya war riig buu taagay war jooga war way ka jooga war ragga aan ogahay oo soo socda ragga aan ogahay oo soo socda oo hebel leh oo jeebkooda ogahay ya oo aqoontooda ogahay oo meeshii qadiyada halkaa ka joogan ogahay oo uurkooda waxa ku jira ogahay oo taariikhdooda ogahay oo malfiyadooda soo akhriyay oo wax ku doonayaan ogahay wallaahi billahi tallahi waa laga sheekayn doonaa hadalkayga wuu aaysan war ninkaas waa ogtihiin isbitaallo waxba maanta Soomaali idinka inay tuhmaysaa ka jooga hooy waa talo weeye ninkaan nooday weeye daaye ninka dadka caaya dadka meelaha kale ka yimid ka badan yihiin marka ninkaan nooday weeye daasta waa taas farmaajo isaga mid baan leeyahay farmaajo waxaan leeyahay war deeqda Soomaali loo soo dhiibo war dadkaasi cadaalad ugu qaybi Hargeysa iyo Somaliland waa tagtay hawga harin waxooda oo waliba u sadburisay deeqaha magaca Soomaaliyeed lagu soo helo oo Soomaali magaceeda lagu bixiyo ila UN-ku maamul goboleed iyo Somaliland iyo waxa wax kuma qaybiyo Soomaali wax ku soo bixiya deeqda soo hesho oo magaca Soomaaliyeed lagu helo ama Carabi Suuriya ee bixisay ha noqoto ama qamadi Mareykan soo dhiibay ha noqoto ama maaragtay lacag horumar loogu talagalo Yurub soo ku deeqday ha noqoto lacagtaas dadkaas gaarsii Hargeysana u badi Puntland waa fiican yihiin waxbay dhisanayaan uu kordhi ha dhisteen cadaado waa maamul hadda soo kacay ya kiisada u fur ma garatay halka koonfur maaragtay Hirshabeelle xawaalli iyo abgaal iyo isu muuqan kala dhig lacag wax ku kala wadaan dadka baahi Soomaali baahi bay isu geynaysaa lacag si maamulka u badi waliba hay halka Sheekh Shariif Sakiin maamulka maarta koonfur galbeed dadka beeraley u badan yihiin abaara badan ku kaceen u kordhiyaga ya meesha la yiraahdo ilaahu aan beerka beelin Jubbaland waadeenka jooga ya kugu qadin wax la gaar marka dadka waxaan ka rajaynayaa deeqaha magaca Soomaalida ku soo hesho
si cadaalada adeero si cadaalada ummadda u sii cid walba u sii dadka cadaalad baa wax tari karta cadaalad aniga cashuurta aniga laga qaado yurubta galbeedka aan jooga cashuurta laga qaado aniga shiina ah cashuurta laga qaado greek baa lagu masaafa kuwa hadda iga beensanaya cashuurta dadka halka ku nool laga qaado yurubta dheregsan cashuurta dadka shaqeeya laga qaado yurubta bari kuwa maartay dhaqaalahooda aan isku filnayn xaggaas lagu masruufaa marka shilinku ku soo galo dadka u miisaansi Soomaali cadaalad baa heshiin karta Somaliland hadda waxay halka uga baxday cadaalad xumay tabanaysaa cadaalad bay tabaysaa cadaalad xumay tirsanaysaa marka adeero waxa magaca Soomaaliyeed uu soo helo wuxuuda ha oran maamulka waa noogo in oran halkooda ugu geysii ama iyagu ha maartay ha kala caqlisteen ama wax ku qabsadeen Puntland maamul xilli heerka horumarka maraysa weeye sida ay boorada u dhisanayaan baa ka asala wadooyinka waxa ay ku hagaajisan lahayn u dhiib ninka cabdi nin oday weeye u dhiib cid kale ha maqal marka farmaajo anagu waa taageersanahay ninka khayra nin oday weeye raga meesha joogo dhan anigu waa taageersanahay shida male dawlad Soomaaliyeed baan doonayaa iyada wax inoo qabanaysa qabiilada Soomaaliyeed dadka Soomaalida ah dadka Soomaaliyeed dawlad bay u baahan yihiin dawlad baa waxa weeye wax tari karta qabiil wax ma tari karo qabiilkuna hadda waa laga gudbay qabiilku hadda waa shaar lagu adeegto anu qabiilada halka ka hadlo waa lagu daawado ya reerka halka ka sheegayo ya khayr uga sheegmiyo waa lagu daawado kuwa aan ka tagay khayr uga ma tagin ya inaan waxba hadalkooda xarakan lahayn baan ogeey ma garateen marka halka qabiiladan ka sheegay afka ku badan iyo qabiilada oo iga soconaya inay yihiin baa ogeey marka qabiiladu kaar la xoqday noqotay hadda qabiil waa laga tagay kaar la xoqday weeye nimanka siyaasiyiinta oo hadlaya oo qabiil reer ku hadlaya kama aha reer hebel wanaag uma wadaan hadii la dhaho mahdigi waa ka gaarsiin miyaan iyaga cunay caloosh intaas wada leegta laakiin maxay rabaan waa xoqanayaan waxbay ku doonayaan xil bay ku raadsanayaan shilin bay ku doonayaan qabiil waxaas qabiil dadkaas qaran cadaaliya waa wax tari kara qabiiladu waa kaar la xoqdo anagu reer hebel hadaa aragto nin cimaamad xirtayo anagu reer hebel dawladdu waxaan leenahay ama mid baa shilin ku soo shubtay ama isaga wax doonaya ama mid baa yiri hada qabiilku waa saas weey kuwa hadda dawladdu ku kacsan reer kasta hala ahaadeen hadii maanta loo yeero dhowr kaalaya war maxaa rabtaan war dawladda dhinaca ka soo gala war talaba wax ku yeesha ya war khasnadii waata war furaa qabsada war jeeka halka ala saxiixaya waxa arkaysa isagu isu ohinayo muwaadina qabiiladu marka kaar xoqdo weey si aan u xoqanayay asala qabiiladu wax xoqdo marka dad baa jira kaarka la xoqdo iska juhla oo isaga wuxuu u dhimanayaan la aqoon wuxuu u xeeqayaan la garanayn wuxuu u baahanayaan la garanayn kuwa hadda halka committee iska qoraya reerka waru maxaa reerka ogahay Allah yahdiiku reerka ogahay reerka هذا أنا بقول عدة أكو حراني هلك إسك جوجبي سوي إنك أنا بهذا هلك مركز حماي إسك عمرتين مركز قبيلك نينك وزيرك أم هلك حلبانك أو إسك هاللي سياسي جا تنكومو هحيقم هكذا مش حردن ههور أردن إسكده إسكده حقوق دونية dadka Soomaali waa dad waa la kala shaqaysanaya meeshtan adeer riyaal marka yaan lagu qaadin qof walba oo adeer dantaada qabso nin siyaasiya oo qabiilad laga bahalkayo maanta dadka qabiilka u durbaantumaya dagaal qabiiliya maanta haduu Soomaali ku dhaco mareer baa reer qabsan kara hadii Soomaali ka dhaco maya Soomaali maanta hadii dagaal qabiil ka soo reer wixii la kala xiran jiray iyo khadkii cagaarka ay ma jiro argagixis ay qabsanaysa taa ku talagal taa lagu talagalo maanta hadii muqdisho xabadi ka bilaamanto ama gobolka xabadi ka bilaamanto oo qabiil loo bahalkayo argixisayna qabsanaysa خلاص wallahi ayna qabsanayeen berigi horeeto inaga kaliyeenu ahayn ya meesha hawiye daarood iyo dir iyo maaragtay raxweyn baa joogay bela aan hadda qabiil aqoon oo waxba xeerin oo tolaay aqoon oo nabadoon loo diro garanayn oo mindi iska sita oo qof walba halka ka saaraya oo naftooda haligaya oo aan إيم لهين وح جيد لهين بودن كيم كواسين قبصنية
ninka durbaan qabiil tumayo oo reerkaaga wax ku helislow argagixisaa gacanta isu gelinaysaa la soco argagixisana waa og tahay saaxiib ma leh qaraabo ma leh ehel ma leh xididnimo ma leh xigta ma leh xishood ma leh waa ku gowracayaan isku ka qarxinayaan marka caalamkana waxaan u sheegaynaa dowladda Soomaaliyeed haddii meesha ka baxdo oo dagaal qabiiliya dhaco dalkaasi dal argagixisa qabsatuu noqonayaa dal wuxuu noqonayaa ammaanka iyo deganaanshaha caalamka iyo kan gobolka wax yeelay argagixisa ma iska celin karnaa inaga ma iska celin karno maalin gelinkeed lama dagaalami karo argagixiso lama dagaalami karo argagixiso haddaan dacmi banaanka 30,000 askari iyo magaca dowladeed iyo dowladaha caalamka haddaan halka ina ku hayn war iska celin karnaa inaga محبين وهيسنا أرجع حسين محبين وهيسنا أكيد قال كل واحد أدون كل قال ينسي دناء محاور رصاصنا ما هيسنا من يسكع عن كرنا من ذكر الدكتور مركم مديسين هاي وقلب يقول ميل جيدو بيحسك عن كران قلنا بقى اسك حرين الهين حتى أمس ولا ما بهنا لكن ده يجي حبل شو شتى أو يجي شو مغضى وتقال كي ساعة ما قبيل شو هيستا وقبيل أنكو كان الجفاء شو ولا تجيه يا ده ما أهرنتو هالك وكح معنا سامرك مركا ninkii raba inay argagixiso u taliso haddaba argagixiso wadanka dhinac bay ka haystaa adeer isu dhib hadda dowladda Soomaaliyeed waa meesha kaliya la iskaga difaaci karo ya marka ina ka daaye dagaal qabiili ah waa ka soo daalnay waa ku soo gubanay waa kaan ka soo tahriibay weey oo Ilaahay ugu ogyahay haddii Soomaaliya wanaag iyo sharaf oo laan lahaa aan ku ogaan nabadii sharaf iyo wanaag ku ogaan lahaa wallahi waa joogi lahaa maanta qurbaan jooga kuwa halka ay daawanaya kun qof hadda idaawanayay qof Soomaaliya kama joogo kunka hadduu ka joogan saacada eega waa labadii habeenimo Soomaaliya u tahay yaa had soo jeeda Soomaaliya qof ma soo jeedo hadduu soo jeedana internet ma jiro xilliga wax lagu daawado qurbe baa joognaa dalkana inaga gubayna dalkana cidda gubaysa inaga weey dadkeena soo carray weey aan ka deyno وهويان كدينو قبيل كهوج يبقى وحن وضنا كدينو قبيل كهلا فهمه قبيل وكار الحقضاء أنا قبيل وفي عنه أنا قبيل كار هيرو بوحقضي أنا كو عقيلنا يا هير جف حقضان أنا هيرو بوحقضان هالكاس اللي يقول داود أيوب ميا مقشمولي وأنا عاو حقضي حتى هبين دمي وحن شلون دقيقة حقنا وهلا يداوض قبيل كهالي أو مقال هبل كهاليانا وحو هاليا وحكلم معها حلب كدونية مركا هذا ريال لندلي يؤدي كجوري أرجع حسي يؤدين كعنقلين كاجو فخري عذاب دجال يؤدين بدن دجال سكية ولا يقنا حتى واحد يشين إهل النار بعطي هديله قدلنا دنفت هذه الويدي إهل النار بعطي إسكداي وحيحون إسكداي ودنيا دك الشقية ورالتني مدك الشقية وحاول دتك Soomaaliya dad meel fog kala jira maaha waxaan ku yiraahdaa iska daay ya waa idin salaamay umada sharafta leh wassalaamu calaykum aad baan idin salaamaya maca salaam khayr baan idin ogahay